فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا داودايال برنامجكي قرآنka iyo Ramadaanta. Barnaamijka quraanka iyo Ramadaanta waxaan ugu talagalnay dhammaan ummadda muslimka meel kasta ay joogaan aan uga faa'iideyno ummadda muslimka ah. Maanta garabkayga waxaa fadhida walaashay Iido kusoo dhawow barnaamijka. aad baan ugu dhawahay waad mahadsantahay walaashay Mitaas Micraaj. barnaamijkana waan ku dhawahay. Iido warbixin waxaad naga siisaa sooyaalka quraanka kariimka iyo taariikhda aad soo dhigatay inta macallimiin ay ka caawisay. marka hore magacaygu waa Iida Daahir Saahid. sooyaalkayga quraanka haddaan in yar oo kooban aan warbixin ka bixiyo waxaan madrasadii ugu horreeyay quraanka ka bilaabay baan ka dhameeyay. madrasadaasna waxay magaceeda madrasatul furqaan iyadaanan ka dhameeyay iyadaanan ka bilaabay alxamdulillah. quraanka waagii aan bilaabayna waxay ahayd ma xasuusta waagii laakiin ilaa 2009 maahaas un bay ahayd. waagan quraanka dhameeyna waxay 2017 bishii 3 ما شاء الله تبارك الله. إذا يوحنا جعلنا لحن إن آيات القرآن الكريم كأنه أخرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا. هذا waxaan bilaabnay barnaamijkii quraanka iyo Ramadaanta oo ay martigu tahay maanta Iido oo ugu talagalnay in ay ka qayb galaan ardayda Iqra College. Iido ma jiraan qof ka caawiyay quraanka markii aad dhiganaysay? way jiraan waagii aan dhiganayay dad iga caawiyay aadna way u fara badnaayeen laakiin dadkii waqtiga u muhiimsanaa waxa ka kow ahaa Ilaahay cilmiga caqliga ha u barakeeyay waa hooyaday iyo aabahay. waxaana ku soo xigay 2 hablood oo asxaab nahay oo aad igu dheer. labada habloodna halkan aad ayaan uga salaamayaa
xayaad faarax cabdilaahi iyo qadar rashiid ayaa la yidhahdaa. labada habloodna waa laba habloodoo ayna midaysayuun qur-aanka kariimka ilaahayna ilaahay waxaan uga baryaa inuu cimriga caqligaba ilaahay u barakeeyo jannatulfirdows alaclaana inuu ilaahay aamin insha allah. aniguna halkan ayaan ka salaamayaa dhammaantood. iyadoo ma jiraan culimo aad ku dayato soodka qur-aanka culimo aan ku daydaa way jiraan. waxaana laba culimo jiro, saalax bukhaydar iyo sheekh maxamed ayuub. labadaa sheekh baan aada ugu daydaa oon aada u dhegeystaa. maasha allah. iyadoo maxaad kula talin lahayd dadka muslimka ah meel kastay joogaan, inagu ku jirna bishii barakeysnada Ramadaan, maxaad kula talin lahayd dadka? maadaama imika bishii Ramadaan aynu ku jirno, ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan kula talin lahaa in ay ka faa'iidaystaan bisha Ramadaan, waayo ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri ayaama macduudaat, waa ayaamo kooban. maadaama ay ayaamo kooban yihiinoo mar ku soo maray oon mar dambe kugu soo noqonahayn, waa inay dadku ka faa'iidaystaan. siyaabo badanna waa loo aqaabili karaa Ramadaan, taasoo ka mid tahay kasratul qur'aan, waayo waa bishii qur'aanku soo degay, waa bishii qur'aanka ay nebi maxamed iyo jibriil calayhi salaam ay qur'aanka wada mudaalacayn jireen, wada subcin jireen. maadaama sidaa ay tahay, innagana waxaa laynooga baahan yahay juhdi aan kan ahayn in aynu samayno schedule, inaynu u samaysano Ramadaanta life system, inaad noloshaada u samayso bisha Ramadaan eed ku jirto sidii aad maxaa la yidhahdaa wax uga bedeli lahayd. culamaul islaamna bishan waxay ku tilmaamaan inay tahay shahru tagyiir, bishii isbedelka. haddaad bishan isbedel weydo ood halka joogta aad ka kici weydo ood boodhka iska tumi weydo, halkii unbaad dee shayaadiintii waaweynada lagaa xirxiray kugu iman doonaan, halkii unbaad noloshaadana kaga sii dhici doontaa. waa bisha kaliyaatay dadku ay laba qaybood u kala qaybsamaan, qayb ilaahay ugu dhawaata sidii ay ilaahay dambi dhaaf ugu sameyn lahaa, ay ilaahay istikfaarta ay badsan lahayn, ducooyinka ay badsan lahayn. waayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in bisha Ramadaan maalin kastoo ka mid ah addoomo naarta laga xoreeyo. dee qofna waa qof ku fikiraya sidii naarta looga xoreyn lahaa, dadka ugu biiri lahaa. qofna waa qof kariyata cuntadii uun ka soomay oo le anigu waan soomanahay, musalsalaad, filimaan, wax maalaa yacni qof ku jeeda. qofna waa qof dee halkaa higsanayo balinkiisu uu yahay inuu jannada u galo. markaas waxaa laynooga baahayay kasratul qur'aan, adducaa. ilaahay waxaa qur-aankiisa waa ka ku yiri waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri ibarya aan idin ajiibe. markaa ducaduna waa muhiim. sidoo kale Ramadaanta qof ilaahay caafimaad siiyey uu soo gaarsiiyey oo bilaasoon ay ku dhaaftaa, dee dembi ka weyn ma jirto. ilaahay dadkii cudurdaarka la siiyey ee bisha Ramadaan cudurdaarka loo siiyey ayuu haddana qur-aankiisa ku yiri wa anta suumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun, waxaa idin khayr roon inaad soontaan haddaad tihiin kuwa waxgarad ah oo wax garanaya. marka bisha Ramadaan waxay nagu waajib ah inaynu xaqeeda aynu siino insha allah bismillaahi kariim. maasha allah tabaarak allah. fariinta aad u gudbisay dadka biidnillah waxaa rajeynaya inay qaadan doonaan. iyadoo ma jirtaa qur-aanka intii aad dhiganaysay suurad kugu adkaatay oo saameyn kugu yeelatay? way jirtaa suurad igu adkaatay oo saameyn igu yeelatay. waxaana ahayd suuradaasi suuratu weylun lilmutafifiin. waana suuradde taariikhdaadi ku qoran markaan akhrinayo. suuradaas waagaas qur-aanka anoon higaad iyo waxba baranin ayaan aabbahay ka dhigan jiray. marka qur-aankii dee marka aanad higaadii ka dhiganin ood iska dhigdhiganaysid da way kuga adkaanaysaa kolley. suuradaha kale waan iska wadwaday, laakiin suuratu weylun lilmutafifiin waxaan u malaynaya inaan 4 months ku jirayba dhigashadeeda. marka taariikh ahaan suuradaasaan xasuusanahay. maasha allah. aabbaha ood hore intaanad dhigan qur-aanka kuu soo dhigayna insha allah ilaahay ku daayo, isagana halkan maan salaameynaa. iyadoo maxaa kuu qorshaysan mustaqbalka qur-aanka inaad ilaa halkee ka gaadho? waad dhamaysay, laakiin ma jeclaan lahayd iminka waxaad tiraahday waxaan nahay macalimad, ma jeclaan lahay milcaamad ku gaaraba inaad yeelato? qorshe waa qorshe aad adigu malcaamad ku samaysan kartood adigu dee taas waa mid gaara. taa waan jeclaan lahaa weliba insha allah. waxaan doonayaa malcaamad in aan insha allah xufaad qur-aan aan kusoo saaro habka aan anigu jeclaystay inaan ku dhigi karayo arday xufaad ah. waayo qofka qof qur-aan barada qiimihiisa waanad ogtahay. xadiis baaba ahaa camalada inta u badan way wada go-aan, laakiin camalka aan go-ayn waa cilmi naaficaad ummadda bartay.
nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allamahu maadaama wadee shaqadii waxaaban haynaa ugu qiimaha badnayd insha Allah dad xufaada inaan soo saaro taasi waa yoolkayga dhankan kale quraanka markaan u imaado kulley marka waan bartayuun waan xifdiyuun on kaliya intaas uu bay ku kooban tahay laakiin insha Allah waxa ay qorsheysan sidan TV hore aan ka hadlayba aan ka baahiyay in aan quraanka heer sare ka gaaro aan todobada qiraaco barto jaasada quraanka tasxiisiisa tafsiirkiisa quraanka de meel la taabtaalka u sareysa insha Allah inaan gaaro ayaan ku hamiyay بإذن الله تعالى إلهي كوفو ضياه كنا قرب قول إلهي إن شاء الله إذا يبحن دون لهن مركلة إن دقها يقولنا كلها حيثو الآن كريم كان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله تبارك الله إلهي كوبان فعو قرآن كادنا أخرسي إذا إنكو كل حجنا برنامج كقرآن كرمضانتا ونكسو تبين ولبا إقرأ كولج إذا دتك أنت بدل وحي آمنسيهين دتك قرآن كدكتا إناني برينكرين لغة إنجليزية دتك فكر كآمنسين محاد كل ترين لهاي سي محاد فرين ودر لهاي فرين تانو در لها وحي تهي هرتو مرك هوري لغة إنجليزية إناد براتو وحيابا بدن بكا عاونيسا kaliya tahadad cilmiga sharciga waad baran kartaa kaliya wad ku koobnaan kartaa laakiin imka waagan aynu joogno waxa fiican labada aqoonodba in aqoonta maadiga iyo aqoonta diiniga aad isku dhafto waliba iyadoo ay sareyso de gacanta saarayso aqoontii diiniga ahayd laakiin imka luqada ingiriishka haddaad barato xataa diinta waad ku faafin karaysaa dad cadaanad ku soo islaamin karaysaa waxbaad ugu sheegi karaysaa ummad kale de markaste bulshadaadu ma dhex taagnaan karaysid laakiin af kale aad ku gudbin karaysaa marka luqada ingiriishka ardayda cilmiga sharciga barta waxaan leeyahay aad bay important u tahay inaad luqada ingiriishka iska dhistaan luqada ingiriishka barataan waayo idinka idin caawinaysaa xataa kaliya haddaad cilmiga sharciga ku koobnaatid wax laga yaabo maalmaha kamid ah inay kugu soo yar xidhmato in maxaa la yiraahdaa warqad imtixaan lagu dhibo meel buuxina ingiriishka haddaanad waxba ka akhri karahayn waa mushkilad ardayda qaar waxa ka dhaadhacsan cilmiga sharciga dhigta maxaa la yiraahdaa ingiriishku way adagtay ama ma baran karaysaan ardayda iskuulaadka soo maray iskuulaadka soo dhigtay wax ka soo dhigtay ma jeedin laakiin ardayda kale waxaan leeyahay cilmiga ingiriishkuna wuu fudud yahay idinkana faa'iido idin tahay dhinac kastana way idinka dhisaysaa anigu ingiriishka halkan ka bartay waxay ahayd halkan imika barnaamijkan aan ku qabanay Iqra College sidoo kale waxaa leeyahay Iqra College-na ha moogaanina waayo Iqra College arday waxay soo saartay ingiriishka de asaanayri fugu hadlaaya imika anigu waan ka dhameeyay wallahi farq weyn baa u dhaxeeyay inta waliga bareef diganay inta iskuul diganayba Iqra intaan ka bartay Iqra waxa jooga macallimiinta ajaanib oo u dhashay luqada markii dadkay u dhashay ku dhigayaan iyo marka kale way kala duwantay waxa laga yaabaa college-yan waagan yara dhigan jiray in kaliya to conversation la sameeyo oo maanta haduu inanka ku caayo oo English ku caayo inaad aduguna bari istiraada ka soo jareenti English waxay dintaare la isku caayay la isweydaarsanaayo wax saas ma sii ahayn laakiin Iqra College waxay ku baraysaa
ingiriishka sidii aad ugu hadli lahayd ingiriishka bay kaa soo saaraysaa mid aad bay leeyihiin ardaydu maalmo gaaro ingiriishka lagu hadlayo dhiirigelin bay ku siinaysaa arday badanoo cilmiga sharciga dhigtaana iqra college way dhigtaan markaa waxaan leeyahay hamuugaanina iqra collegena ingiriishkana way idin caawinaysaa insha allah iyadana xaggaa ka wada mahadsanid walaashii iido gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa qur-aankii rabadaanta halkan idinka soo tabeynana waa iqra college barnaamijka waxay la socodsiinaysaa anigoo ah Mumtaaz Maraad Xasan waxaan idin leeyahay barnaamijka xiga insha Allah biidin ilaahay waxaynu ku kulansiiyo